furitaanka shirweynaha urur siyaasadeedka ka ah waxaa ka qayb galay ergooyin kala duwan oo ururka ka tirsan kuwaasi oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee gobolada Puntland. waxaa sidoo kale shirweynahan goobjoog u ahaa madaxda Puntland ugu horeeyay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, gudoomiyaha baarlamaanka, golaha xukuumadda qaybo kamida, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale iyo waliba dadweyne kale kuwaasi oo dhammaan ah taageerayaasha iyo xubnaha ururka. khudbado kala duwan oo shirka hordhiciisa iyo waliba suugaan iyo qaybo kale oo laga jeediyay waxaa kadib lagu galay doorashada gudoomiyaha ururka. natiijada doorashada gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka cid loo doortay ku-xigeenadiisa waxaa faahfaahin ka bixiyay oo sharaxay wasiirka duulista hawada ee garoomada oo horay u ahaa gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka ka Xasan Cismaan Gabiley. musharaxiintii waad garanaysaan waxa gudoomiyaha ururku soo sharaxay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani, waxa madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka loo soo sharaxay madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan, waxa gudoomiye ku-xigeenka labaad loo soo sharaxay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. codayntii waxay u dhacday sida tan waxaa codeeyay oo codkooda kalsoonida siiyay gudoonka aynu dooranay 558, waxaa ka aamusay 2 xubnood, waxaa diiday 7 xubnood. saacadan laga bilaabo waxaa ah gudoonkii ururka ka madaxweynaha dowladda Puntland. hambalyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo khudbad dheer ka jeediyay shirweynaha urur siyaasadeedka ka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in dhammaan shaqooyinka ku baxaya iyo howlahan lagu kala socodsiinayo ururka ka in wax hanti dawladeed ama lacagta dawladda aysan ku bixin shaqooyinkan lagu kala socodsiinayo ururka ka. waxaana uu sheegay madaxweynuhu in waxyaabaha ururka ka uu ku shaqeynayo ama uu adeegsanayo ay tahay khidmado lacag ah oo xubnaha ururku ay iyagu ay iska aruuriyeen ama ay bixiyeen. waxaan dilayaa maanta madaxweynaha Puntland $1 oo dowladda Puntland leedahay dhismaha ururka markii waxaa galay contribution-ka xubnihiisa. ugu dambeyntii abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, gudoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Puntland, ayaa waxa uu sheegay in ay rajeynayaan in ururka ka uu noqdo mid ka mid ah ururada siyaasadeed ee ka jira Puntland isla markaana uu gaaro doorashada 2024. golaha dhexe ururka waa loo hambaynayaa. waxaan ugu hadlayaa guddigii ku-meel gaarka ahaa ee ururka, gudoomiyihii, gudoomiye-ku-xigeenkii, madaxweynaha iyo dhammaan howlwadadii ururka ee la shaqeynayay shaqada wanaagsan ee baaxadda la socota. waxaan ugu faraxsanahay maanta 8 sano iyo 3 bilood iyo maalin kadib inuu hirgalay qodobka 46 faqradiisa koowaad ee dastuurka dowladda Puntland oo odhanaysa dowladda Puntland waxaa lagu dhaqayaa nidaamka xisbiyada. Cawl Cali, warbaahinta Goobjoog, Garowe.